السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo sarag dambe oo xiiso leh. Magacaygu waa Faarax Abdulqaadir Maxamed. Waxaanu xilli kasta halkan ku kulannaa falanqeynaa marxaladihii ugu dambeeyay ee gudaha Soomaaliya iyo waliba sidoo kale gobolka Geeska Afrika oo ay Soomaaliyana qayb ka tahay. Daawadayaal waxaanu maanta ka hadli doonaa hal sano ayaa ka soo wareegatay markii xukunka laga tuuray madaxweynihii ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar 4 Agoosto 2018 xilligaas oo ay bilowdeen maalinta ay dhaceen rabshado waaweyn oo saameyn culus ku reebay guud ahaanba gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya ama Soomaali galbeed ama Soomaali state hadba qof sidoo yaqaan isbedeladii intaas dhacay ilaa iyo hadda sanadka maxaa la gaaray gobolka maxaa iska bedelay isbedelka Itoobiya sidoo la jaan qaaday maxaa si hoggaanka hadda hayay qayba oo arinta qayb ka leeyahay aanu falanqeyn doonaa hadii Allah awood leh oo raali ka ahaado waxaan si naxariis iyo xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad muuqaalkan la sii wadaagtay asxaabtaada sidaas oo kalena meesha gududan aad subscribe ku dhufatid oo gacanta ku dhufatid gambaraalkan aad furatid commentiga iyo like-tana aad xilmaamin soo dhawaada daawadayaal maanta gobolku saameyn noocee ayuu ku leeyahay isbedelada waaweyn ee ka socda dalka Itoobiya arintaas ayaa midda aad ka dadku isku weydiinayaan shaki ma leh gobolku inuu ciyaarayo fursado waaweyn oo abuurayo oo ah saameynta uu ku yeelan karo ismaamulka Soomaalidu isbedelada guud ee ka socda dalka Itoobiya waxaan ognahay inay ku jihaysan tahay marxalad aad u adag oo ah gudaheeda oo karsamaysa dadka siyaasadda falanqeeyana waxay ku sifeynayaan 2020ka doorashooyinka hadii aan la qabanin wax badan isbedeli karaan xilligan aanu hadda fariintan ama aan falanqeyntan sameynayno wariga soo gaaray Addis Ababa wuxuu sheegayaa in 33 xisbi siyaasadeed oo ah kuwa mucaaradka ka soo horjeeda xukunka EPDRF inay ku dhawaaqeen inaysan ka qayb galin doorashada 2020 aysan ogolaan doonin wax dib u dhacay waqtiga lagu sameeyay halka guddiga doorashooyinkuna xogaha iyo warbixinada ay soo baxayaan ay cadeynayaan inaysan diyaar u ahayn Itoobiya 2020 doorashooyin ka qabsoomaan hadii taasi qabsoon weydaan halisteeda ay leedahay taas waa waxa guud ee Itoobiya la wadaago laakiin madaxweynaha ismaamulka hadda gacanta ku haya waxa uu laba xulufaysi la kaga dhex jiraa dhinaca Oromiya oo OBD iyo dhinaca Amxaarada dhawaan way kacday waxayna sameysay wax isku day afgambi ah si ay dalka qabsato Mustafa waxa uu booqday gobolka Amxaarada dhawaan waxa la rumaysan yahay inuu qayb lixaad la ka qaatay oo uu dhexdhexaadiyay qadiyada ku saabsanayd in isku hayeen xukunka ayagoo laba dhinac ah gaar ahaan ninka la soo magacaabay dadka aad ka u falanqeeya arrimaha gobolku waxay isbarbar dhigaan laba arrin ma xaggan iyo Amxaaro ayaan xilligan u jahansanay mise xaggan iyo Oromo arrintaas aad baa loo wadaagay falanqeyno badan waa laga sameeyay aragtiyaha dadka hadii aan si guud soo koobana laba kooxood ayaa la kala noqday koox Mustafa ku dhaliilay inuu Amxaara la saftay iyagoo doonayay in Oromo la safto iyo koox u arkay in uu istiraatiijiyad siyaasadeed xoog badan oo baacal ciyaarayo oo uu doonayo in gobolka Soomaalidu uu noqdo mid hardanku isaga laftigiisu horay markan u kaayay halka ay ahayd in isbedelku markaas Itoobiya gobolka Soomaalida kor kaga imaan jiray oo Itoobiya dad magan ka ah ay ahaan jireen Mustafa doonayo in Itoobiya ay qayb ka noqdaan Soomaalidu oo ay talada ugu sareysa ku yeeshaan inkastoo dhinaca marka laga hadlayo wasiirka maaliyadda Itoobiya uu yahay Soomaali waana markii ugu horeysay haddana ninka jooga Mustafa Axmed Shide waxa lagu tiriyaa inuu kamid yahay xisbiga EPDRF qaybta Soomaalida joogay raggii ugu horeeyay muddo dheer gacanta joogay gacanta ku hayay arrimaha talada haddana koox kale waxay aaminsan tahay in ay muhiim tahay in Oromada la noqdo walaal iyo saaxiib dhow maadaama dadka Oromadu ay yihiin dadka ugu badan ee muslimiinta ah maadaama ay yihiin qowmiyadda ugu badan ee Itoobiya maadaama ay yihiin dariska Soomaalida ee qowmiyadaha ee daris ahaan ugu dhow in heshiis iyo wada hadal la galo maamulka hadda jira taalaftigeeda wuxuu galiyay dadaal badan marka la fiiriyo sida sawirka laga haystay iyo dagaaladii socday iyo dibku sida ay ahayd markay xukunka la wareegeen iyo hadda oo aanu saacado ka hor aan magaalada Jigjiga ay xaqiijeen qaar ka mid mas'uuliyiinta maamulkaasi inay soo gaareen in ka badan 80 mas'uuliyiinta ismaamulka Oromiya ah oo uu hogaaminaya madaxweynaha Oromada oo halka u tagaya sidii heshiiska iyo loo si amba qaadi lahaa oo looga gudbi lahaa dhibaatooyinka labada qowmiyadood la dhexdhigay
gobolku hadda wuxuu wajahayaa khilaaf kale oo gudaha ka soo abuurmaya sida xogtii ugu soo gaarayso taas oo ah in Mustafa Cumar sanadkii u dhamaaday oo doonayo in wax kasta la geliyo Soomaalinimada lana hormariyo iyada isagoo waliba dadaal badan geliyay sidii meel mar looga dhigi lahaa in ONLF oo ah jamhadu soo dagaalantay xornimada gobolka iyo xisbiga oo iskaashanaya inay wada jir wajahan marxaladaha siyaasadeed ee gobolku iyo guud ahaan Itoobiya ay wajahayso arimahaas oo dhan marka laga hadlayo gobolka waxa la rumaysan karaa ama si fudud oo buuxda aan anigu shakhsiyan ugu daraasayn karaa inuu ka soo gudbay marxalad la soo maray marxaladda la soo maray maxay ahayd marxalad adag oo uu la wadaagay Itoobiya oo dhan wuxuu maanta la taagan yahay marxalad kale oo ah xorriyadda qowlka oo fasaxan saxaafadda madaxa bannaan ka howlgalaysa cabashada dadka oo si caadi ah loo gaari karo maamulka oo la dhaliili karo iyo arinta Soomaalinimada oo meel wanaagsan laga gaaray shanta qodob waa shan qodob oo aad muhiim u ah marka laga hadlayo maamulka gudihiisa hase yeeshee waxa wali meelaha qaar aad dadku ay u dhaliilayaan maamulka musuqmaasuqu sidii yahay oo ama uu ka sii badan yahay meelaha qaar kood sidaas oo kale inay wali jirto in maamulku si dhameystiran uusan u baahin adeegyadiisa oo uusan horumar xoog badan gaarsiin hase yeeshee labadii bilood ee la soo dhaafay waxa jiray miisaaniyad oo maadaama miisaaniyadda sanadkii hore aad loo expensive gareeyay in hadda miisaaniyadda cusub ay rajeynayaan mas'uuliyiinta cusub inay howlgeliyaan marka guud ahaan la fiiriyo gobolka Soomaalidu wuxuu hadda ciyaarayaa door xoog badan oo ku wajahan arrimaha siyaasadda Itoobiya waa laga yaabaa daawade in aad naga fikir duwan tahay ama falanqayntaas aysan si aad aragti ahaan aaminsan tahay haddaba maxay tahay aragtidaadu hal sano kadib gobolka ismaamulka Somali State maxaa isbedelay khasaaro mise faa'iido fikradaada hoos ayaad noogu reebi kartaa hana ilaawin inaad subscribe gareysid muuqaalka saaxiibada la soo wadaagtid commentigan aad hoos noogu reebtid arinta kale ee gobolka jirta ee muhiimka waxa waaye ONLF oo iyana gobolka soo degtay waa mucaarad wax badan bay gudaha jooga oo arimuhu siyaabo kala duwan ay yihiin oo laftigeedu wali ajandaheeda siyaasadeed uusan cadeyn ay doonayso hase yeeshee shaki male in maamulka Mustafa Maxamed Cumar uu ku guuleystay in uu wax badan ka qabto arimaha gudaha gaar ahaan sidii jabhadan wada hadal iyo heshiis loogu dhameyn lahaa kasoo jamhadaha kale soo laabtay Itoobiya dib u soo galay ay kamid tahay OLF oo onag loo yaqaano oo oromida maxaarada TPLF ta iyo dhamaan dhabuubta waxa muuqata in jamhadaha kale oo dhan dawladda markii ugu horeysay ay isku dhaceen oo militariga isku beegeen gaar ahaan oromada iyo maxaarada oo kale oo dhex maray dagaal culus oo meel adag la isla gaaray oo boqolaal qof ku dhamatay haddana gobolka Soomaaliya dagaalkaas uu ka badbaaday laba sababood ayaan lagu tirinayay inuu ka badbaaday kow waa maamulka oo ahaa mid aaminsan qadiyada oo ku dagaalamaysa inay ahayd mid gobonimo doona oo ay tahay in lagu bogaadiyo wixii ay qabteen wadajirna loo raac iyo arinta labaad oo ah inuu markiiba hore looga guuleystay qorshaha isku dhafka ciidamada oo ahaa hubka dhigis qorshaha ku jirta in lagu sameeyo jamhadaha hubeysan dalka soo galay laakiin Mustafa Maxamed Cumar iyo ONLF oo iskaashanaya ay ku guuleysteen in labada ciidan la mideeyo ONLFna inta badan hubkeedu uusan noqonin mid meel gaar ah laakiin kamida ciidamada new police-ka inkastoo ONLF ay falsafad badan oo siyaasadeed ciyaartay oo maadaama jamhaduhu ay dib badan yihiin oo ay garan karaan lucbada ay soo galeen iyo qaabka ay tahay ayana ahayd mid kale arrimahaas oo marka la fiiriyo waxa laga yaabaa dii aanu fikradaha u aragno dadku ay noo reebayaan qaarkood inaan ka hadalno ONLF iyana maxay ku soo kordhisay ama ka faa'iiday isbedelka Itoobiya sanad kadib markii Itoobiya oo guud isbedeshay hadii aan leedmo hadii codaynteedu ay badato oo halkan fariinteeda ay nagu badato hadii Allah u daraali ka shaki male in Itoobiya isbedel badan oo ka dhacay gobolka Soomaalida oo wax badan kaga duwanaaday oo isbedelada gobolada qaarkood burbur ay ka qaadeen isagu oo wadiiqa wanaagsan raacay inkastoo khaladaadku ay jiraan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan iyo waqtiga aad noo horto waxaanu si xushmad iyo qadar leh kaaga codsanaynaa in aad muuqaalkan la soo wadaagto asxaabtaada aad share gareysid aad subscribe ka meesha guudan dhagsiisid gambaleelkana ayar gacanta ku dhufatid sidaas oo kalena aad commentiga aragtidaadu waxay tahay iyo like-tana aad hoos noogu reebtid assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
daawade si aad warbixinadeena falanqeymaha iyo joogtada aad ula socotid waxaad samayn kartaa inaad rukumatid barteena oo subscribe tiraadi sidaas oo kale waad sii share garan kartaa muuqaalada kala duwan ee bartanada la wadaagaya asxaabtaada kala duwan